ay soo saartay dantu ay soo saartay ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa dadka soo dhameeyay shaqaaqadii bari ka dhacday ee awwatay maxamed kaahin ilxidh aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa dadkaana laga soo arintaana laga soo afxidhay ee dadkii la heshiisiyay wasiirka arrimaha guduhu aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay maxaafid iyo macaaratoona runta in la sheegaa ceeb maaha ninkana wuxuu qabtay haddaad sheegto dee ceeb maaha ina kaahin ilxidh waddanka abaal weyn isagoo hore ugu lahaabo imikana taa aad iyo aad annagu aan ugu ammaanaynaa waxaan u soo baydhayaa meeshan laga hadlayo ee go'an 12 sannadood bay sidaa u go'anayd 22 qof baa ka dhacay 4 waa jajabtay waa meesha arkaysaan ee gebiga intaaba dawladda hoose waa arkaysay kabka dhexe ee dawladda dhexe ay bixisay ee ay ku doodayay maayirku awleeyay gabiile iyo berbera naga qaadatay halkaasoo kale loogu soo dhiibi jiray maalin qura ismuu soo dul taagin madaxweynaha waxaanu leenahay haddaad ka jirtay dee awalbana lama keeni jirin waad ku mahadsan tahay waxa aan u sheegayaa dadweynaha reer burco looma dooran ina muraad looma dooran nasiye looma dooran labiguun meeshan dadka uu ku haysta ee 24 saacadood reer miyigii madaxa isu geliyay looma dooran tanaa loo doortay waxay ahayd inuu ka shaqeeyo dalka iyo dadka uu wax u qabto oo waxa uu ka qaadanayana uu xalaashado waxyaabaha aanu ognahay maanta halkan ka sheegi mayno laakiin waxaan nagabay haddaanu nahay reer burco nimanka hanti dhawrka ee dabagalka dawladda qaabilsan ayaa nagabay markii ay yimaadeen rabadaantiina waxay yidhaahdeen xaqal ciid bay noo soo doonteen dee mar hadday waxba ka qaban waayeen waxna sheegi waayeen way u eegaatay annagu waxaanu leenahay way u eegaatay dee xaqal ciidkii ay sheegayeen waxa aan soo jeedinayaa madaxweynaha imika dalka haysta ha naga qabto ninka maayirka ah ee dhibaatada ku haya gobolka togdheer ha ka qabto intaanay noqon meeshii la odhan jiray maxay tahay jigjiga sidii ina ilay miyay dawladdu hadday maamul leedahay miyay ummaddaa ka qaban kari weyday miyay ka qaban kari weyday ummadda au dhibaatada u geystay ee au guryaha au ka dhistay maanta gobolka togdheer la og yahay ee kuwa miyiga au ka dhistay la og yahay dawladdu maxay noogu eegaysaa hadday naga qaban weydo annagu baableeshinku annagaa xukunna gobolka togdheer dee annagaa iska qabanayna reerkuna hadhow bay reer iyo wax sheegata anigu ninkii keenay baan ahay burco iyayna muraad kala dooran mayne hadduu burco waxba ka qaban waado oo wax u qaban waado annagaa gacanta kaga qabanayno reerkuna geed buleeya lagu xidhan ninka dawladdu amar degdegaannu ka rabnaa dawladda inay qabanayso iyo inaanay qabanayn keli waxaannu ku labaynaynaa ma jirto waxaan leeyahay annaga gabiilayna waxba nagama qaadan berberina waxba nagama qaadan hargeysina waxba nagama qaadan annagaa gobolka iyagii gabnay maayirka iyagaa gobay xaal iyo boolajiis baannu gobollada kale ee waxooda qabsaday aannu siinaynaa waxa aan leeyahay maayirkii hadduu magaalada gabay oo annagu aannu keennay aannu maanta ka soo horjeedno ciddii ugu dambaysay aannu nahay waar dee madaxweynuhu haddaannu raalli burco kaga ahayn inuu dhibaatadaas madaxa loo saaro oo sidaa loogu eego ha qabta iminka si degdega u qabto war ma araryuubu u waay waxaan kuu sheegayaa madaxweyne 4 casho haddaad wax ka qaban weydo in la isweydiiyo ayaannu kuu sheegaynaa annagoo burco ah anigu kaligay waan jabi maayo burcaannu ku fasaxaynaa gacan baa wax laga qabanaya 4 casho haddii war degdega haddii laga waayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu